بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله درسنا وحكوصة في السنان دونا قبول الأعمال أعماشها إيوه سيابها الله وكو أقبل سبحانه وتعالى cibaado kasta aynu samayno hadday xaj tahay iyo hadday cumro tahay iyo hadday salaad tahay iyo hadday soon tahay iyo hadday sadaqad iyo hadday cibaado kale tahayba waxaynu rajaynaynaa in allah inaga aqbalo subxaanahu wa tacaala laakiin shuruud ama asbaab ama waxyaabo bay culimmadu tilmaamaan sababa in qofka cibaadada laga aqbalo cibaadada waa wada samaynaa laakiin kuma cibaadadiisa la aqbalay Allah og subhanahu wa ta'ala sida awgeed baa waxa laga sheegaa salafkii saxaabadii rag kamida layta shahri man al maqbul fanuhni wa man al mahrum fanu'zi waxa laga sheegaa Ali ibn Abi Talib inuu oran jiray ee waa kuma qofka talow laga aqbalay amalka aynu tahniyadaynay waa se kuma ka laga xaraam yeelay in laga aqbalo أن تعزيه أنو دقناه ابن مسعودنا وحا لغا شيغي جيري إنو أوران جيري ويرتا كودو دوا أيها المقبول هنيئا لك أيها المردود جبر الله مصيبتك كعباداتك لغا أقبل يو بوغادين باكو سغناتي كعمل كيسي لسوء علي يو مصيبة هذا الله كو كبابو أوران جيري تا معنى هدو حويان عمل كوين وضا سمينينا لكن قبولك حق قالوا كحرين قفك مؤمن كان وحا وين وكفكر وحي ويان عملك يريدي سماها يبنديس وعملك قبول كيس النبي آدم ودتك يقوه الرجال ربنا وقاق السوداء به الدبدودة مركي أي قربانك جيستين مدنا والله أقبلين مدنا لقى ما أقبلين كي لقى أقبلين إلهي وحكوت المامة إنما يتقبل الله من المتقين إلهي وحو وحكا أقبلا كوا ألك عبصدا قبولك وحا قادا داتك منزلة التقوى قادي أيا قادا آخرات بيقول نحدين بدنتين اتماده أديقو خير رجيني لكن لو قداه حاجي وحبك مجران ضد بدن وقالوا بدنت إلهي وحلي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا waxaan soo horumarinay buu Ilaahay leeyahay wixii shaqaysteen waxaana nu ka yeelaa maxay habaan manthura board la saydiyay ama siiga la saydiyay wabada lahum min allahi ma xaqa alle waxa uga muuqda baa leeyahay ma lam yahtasibu waxaanay filanaynin qof amal sameeyo islaha waa la aqbalay oo aakhira markuu tago wixii uu rajaynayay waxaana hayni ka soo horbaxaan إلهي بالقرآن كوحكولي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ما يدين شيئا كو عمل كود هوغي خساري الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وكو أدون كينتي تشوغي بعمل كود اللي لا أقبلين إيقو سمو دي ينعماش لك أقبلي إذن أيها الأحبة إلهي وحلي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ننك آخر الدنيا عماشي سيبتغاء وجه الله كدونية وآخر الشغيست وسعى لها سعيها عملك آخر الله أقبلنا ليمد إسقوا مؤمنة فأولئك كان سعيهم مشكورا كوا سعي قد ومشكور أي مقبول ومد لوغم هدنقه ومد الله سبحانه وتعالى كأبا المريو هذا أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى وغني عن أعمالنا مركهوري وحين الشقين نردن إلهي غني بكيه لكن وحين الصمين إنه إلهي وحلي واندينك شكر نقيا وايدنك أبا المرينيا إلهي نوحين إليه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه نك الله سبحانه وتعالى وما هذا نقطع عديس السيدي ولي ماذا
camalkaa abaalmarkeeda adaa iskale baa ilaahay leeyahy waman kafar fa ina allaha haniyun xamiid ciddiisa ka gaalowda ilaahay hani buu ka yahy waana ka maarmaa in takfuruu fa ina allaha haniyun cankum walaa yardaa licibaadihi اlkufr wain tashkuruu yardahu lakum haddaa gaalowdaan ama ilaahay nicmadiisa dafirtaan ilaahay hani buu idinka yahy baa la yidhi isla markaana idinlama jeclo gaalnimada haddaa shukri naqdaanna yardahu lakum raallu idinka noqonaya haddaba qofka mu'minka ah waxaa saaran camalka intaanu samayn iyo markuu ku dhex jiro iyo markuu dhammeeyaba waxa uu ka warwaraa waxa weeyaan camalkani ma yahay mid alle talow raalli ka yaho aqbalayo waa isagoo daaco ah ayaad haddana isweydiinaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma kaa aqbalaya dadkii mu'miniinta ahay mushfiqiin waxay ka ahayeen camalkooda ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay waladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun waladiina yu'tuun ay yucطuun kuwa bixinaya baa la yidhi maa aatow waxay bixinayaan ee sadaqa ah ee acmaal saalixa ah waxay wanaag la imanayaan kuwa la yimi wa quluubuhum wajila iyadoo qalbiyadoodu ay cabsanayaan baa ilaahay yidhi wuxuu samaynayaana waa taaco haddana cabsi baa ku jirto cabsidu xaggay ka timi talow rabbi ma kaa aqbali buu ka cabsanaya caaisha radia allahu canha wa can abiha ayaa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa waxay weydiisaa aayadatan ilaahay rasuulkiisa ubay tidhi aayaddan ilaahay leeyay waladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raajicuun ahum yashrabuuna alkhamra wayasriquun kuwa kani ma kuwa khamrigana caba ee tuugadana sameeyaa oo markaa ninkii xumuu samaynaya wuxuu isleeyay ta waxan yar ma laga aqbali doonaa uu la yimi wuxuu nabigu ku yidhi laa yaa binta sidiiq kuwaa maaha kuwa laga hadlaya walaakinahum aladiina yasuumuun wayusalluun wayatasaddaquun wahum yakhaafuuna an laa yuqbala minhum nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa kuwa soomaya oo tukanaya oo sadaqo la baxaya oo welina cabsiyi ku jirto ilaahay ma idinka aqbali doonaa ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat baa ilaahay yidhi marka kuwaa cabsidaa qaba waa kuwa khayrka u degdegaya baa rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala xadiidka tirmidiya ibni maaja baa warinaya sheekh ilalbaanina saxiix buu ku tilmaamaya su-aashu waxay tahay haddaba mataa yuqbalu alcamal goorma camalka la aqbalaa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiyo saalixiin ducaysanaysa oo leh waan acmala saalixan tardaa ilaahayo waxaan ku weydiisanayaa camal wanaagsan oo aadna raalli ka tay markuu raalli alle camalka ka noqdo ayuu maqbuuliyey haddaba laba shay baa jira waxa la yidhaahdo sixa inuu camalku asaxo oo mujzi uu yahay aakhiro aan lagu qabsanaynin iyo inuu camalku maqbuuliyo la aqbalay hawaab laga helayo waa laba shay oo kala gedisan sixadu inuu camalku asaxay qubuulku aslan wuxuu ku xidhan yahay sixada oo camalku haddaanu marka hore asixin maqbuulba maaha laakiin waa in sixadaasi wax la jiraan asalku waa maxay maalan wuxuu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka muslim laa yaqbalu allahu salaat bigayri طuhuur ilaahay ma aqbalo salaad طahaaro la-aan lagu tukaday waayo sharطun min shuruuطi sixati salaa baa maqan salaad طahaaro la-aan lagu tukaday rabbi ma aqbalo wala sadaqatan min guluul sadaqo tuugo ka timina alla ma aqbalo wax guluuloo la xaday haddaad tidhaa waan sadaqadaysanayaa iyana alla ma aqbalo subxaanahu wa tacaala idan asalku waxa weeyaan shaygu sixadii inuu la yimi oo sixada laba shay baa u shardiya inay waafaqsan tahay sharciga daahir ahaan inay waafaqsantahy maalan salaaddii inay weysadii leeday qibladii inaad u jeesato wakhtigeedii inuu soo galay arkaanteedii iyo shuruudeedii iyo waxeedii inaad la timi intaasi waa daahirkii iyo muuqaalkii wax labaad baa jiro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay midkiin baa tukada oo salaaddiisa aan lahayn ilaa iyo 9 meelood ama tusucaha humunuha
nebigu cushur buu riwaayadka qaar baan filayaa inay ka bilaabmayso. qof salaad tukanayo salaadiisa leh marka 9 meelood loo qaybiyo meel ahaan 8 meelood loo qaybiyo meel ahaan ilaa uu soo gaadhsiiyey nus 2 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan oo waa maxay salaada intaad soo jeedaabad ajirkeeda leedahay inta qalbigaagu xaadirkayay ee ilaahay aad dhab ula hadlayso ee aad soo jeedaabaad ajarkeeda leedahay idan salaadoo dhan miyaynu soo wada jeednaa waa maya inta badan salaadaha markaynu gallo waad mashquushaa meel kale caqliguu baxaa waxbaad xisaabisaa wax kalaad ku mashquultay intaad xaadirka ahayd baad ajarka leedahay marka waxaa suurtagala dadku inuu safka salaada ku wada jiro hal salaadna wada tukanayo isku ajarna aanu ahayn qofba uu in helay mid baa salaada ku jiro allahu akbar ay ugu wardambaysay markii uu yidhi wuxuunbuu miiraabay assalaamu calaykum markii la yidhi ilaahayna qur-aanka wuxuu ina leeyahay khamriga kuwa caba khamriga ha tukina xataa taclamuu maa taquuluun ilaa aad garanaysaan waxa ku hadlaysaan waxay culammadu yidhaahdaan dadka badh baa adduunyadu sakhraamisay oo aan garanaynin wuxuu ku hadlaya khamrina ma cabin mana joogo asalku waxa weeyaan markaa salaadda waxaad leedahay ajarkeedii salaaddu ma kaa gudantahay haa aakhiro maa tukanin lagu odhan maayo oo mar haddii aad la timi shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo waxeedii culammadu waxay leeyihin qofkaa la odhan maayo salaaddii waa laguu leeyay ama salaadda soo celi laguma laha idan salaadaadii waa saxiix laakiin intaad ajar ka helaysaa intay ilaahay kuu dhoweynaysaa intaad thawaab helaysaa aakhiro intaad ku biiraysaa kuwa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar intaad ku biiraysa intaad noqon kartaa salaadu kuwa ay ka celiso fuxshiga iyo munkarka waa salaada cinda allahi maqbuulka ah waa salaaduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalan mid baa la yidhi habeenkiina wuu tukadaa maalintiina waxbuu yaro xadxadaa nebigu wuxuu ku yidhi ma tukadaa haa bay yidhahdeen habeenkii waa nin tukada idan salaatuhu satanhaah buu nebigu yidhi salaaddiisaa ka reebi doonta salaaddiisu hadday tii fiicnay tahay iyadaa ka reebaysa idan sixada inuu shaygu asaxay iyo in rabbi aqbalay oo hawaabad heshay waa kala laba saxiixnimadu waxay ku xidhan tahay acmaasha daahirkeedii inuu sharciga waafaqsan yahay ilaahayna in loola jeedo aan cid kale loola jeedin liyabluwakum ayukum axsanu camala axsanu camalku waa kay culammadu yidhaahdaan waa inuu sharcigana waafaqsan yahay isla markaa waxaynu leenahay calaa maa fi lquluub waa marka koowaad qalbiga waxa ku jira bay ku xidhantahay salaada oo maalan aakhiro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay nin baa imanaya dabeetana sijillaat min adunuub faylal dhan oo dembiyaa la keenaya kan ma samaysa wax walba uu qiranaya haa buu leeyahy wax camal oo aanu kaa dulminay miyaad garanaysaa may wax xasanaa ma leeday waxba uu garan waayaya waxaa la leeyahay xasano fiican baanu kuu haynaa sijilli baa la keenaya hal faylan quraa la keenaya bataaqa ayuu nebigu ku tilmaamay kaadh baa la keenaya kaadhkaa waxaa ugu qoran tawxiidkiisii kelimatu tawxiidkiisii baa ugu yaalla nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaadhkaana meel baa lagu miisaamaya sijilkii kale faylashii kalena meel baa la saaraya waxaa la yidhi kaadhkaa ka xoog badanaya dabeetana jannadu gelaya okay waa nin tawxiidkiisa ka xoog batay dembigiisii laakiin axaadiid kale waxay tilmaamaysaa qaar ahlu tawxiida oo naarta gelayaa jira iyana axaadiista jahanamiyiinta iyo ka warramaysaa wax allaaliya wixii qalbigiisa iimanuun ku jiro kolba in la soo saari doono oo marka ugu dambaysa xadiidka nebigu uu tilmaamayo jahannamo meelaha dadkaasi galeen oo kale jiirjiirka waxaan la yidhahdaa ka bixi doona waqtay jahanami gaari doontaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dhiri ay ka baxdo waxay culammadu yidhahdaan waa dabaqada mu'miniinta ku jirta dabaqada kaafiriinta maaha dabaqada kaafiriintu sideedii bay naar u ahaanaysaaye dabaqadii ama meeshii ay kaga jireen dadkii muwaxidiinta ahaa ee dunuubta sameeyey zinada ku dhacay khamriga ku dhacay boobka ku dhacay dil sameeyey waxaan dadkii acmaash dunuubta waaweyn sameeyey la ciqaabay ee markii dambe laga soo saaray waa meesha ku jireen oo iyagoo miyaanaya shahaadanin mee waa shahaadanayeen laakiin waxay leenahay sida salaadeenna u kala xoog badantay ayaa xataa kelimatu tawxiidkeennuna u kala xoog badan yahay quluubta waxa ku jira iyo qofku ilaahay siduu daacad ugu yahay iyo rabbigii siduu u arkayo
iyo macbuudkiisa siduu u weynaynayo waa ku kala gedisanay basharku waa kala gedisan walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam nin baa meel soo maray markaasuu yidhi kaasi siduu idinla yaagtiinna nimankii la fadhiyay saxaabadii waxay ku yidhaahdeen ilaa rasuulkiiyo kaasi waa rajulun xariyun waa nin mudan bay yidhaahdeen hadduu gabadh ku weydiisto waa nin la siiyo oo hadduu hadlo waa nin la dhegaysto oo hadduu erga kuugu yimaado waa in ergadiisa nin la aqbalo yacni bulshada dhexdeeda waa nin magac ku leh oo wixii uu la yimaado laga aqbalayo nebigu iska aamusay mid kalaa soo maray markaasuu yidhi kaana ka warrama waxay dhaheen kaasi hadduu erga kuugu yimaadana shafaacadiisana mid la aqbalaya ma aha warkiisana hadduu hadlayo mid la dhegaysta ma aha gabadh hadduu ku weydiistana mid la siiya maaha bay dhahay yacni wixii dadku isku qadarin jiree buurna ma wato nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa aa sheegaysaanoo hore dhulka muggiyo kaasaa ka khayr badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhulka muggiyo ninkan idinka idinla ammaanana waxaa ka khayr badan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kaa qura idan ma fi lquluub ilaahay unbaa taalacda taasaa dadkuna ku kala taga acmaasha aynu samaynayno hadday salaad tahay hadday tawxiid tahay hadday sadaqo tahay hadday wardi tahay waa inta aynu xaadirkanay inta aynu rabbi weynaynayno inta qalbigeennu nool yahay kaana waa ku kala gedisanay inuu sharciga waafaqsan yahay markaa camalku wuu ku asaxaa inuu ikhlaasnimada iyo rumayntaada la rumaysa iyo intaad rabbi weynaynaysana ajarkiisaa ku kala bata haddii ilaahay hayrkii dee loola niyoodana waabuu buraa waxaa kaloo jira mawaanic khaarijiya inta hore adigoo wax ka mida soo sameeyey maanic ka baxsan oo diidaya in camalkaaga la aqbalo maalan nebigu calayhi salaatu wasalaam kii curaafayska u tagay ee rumeeyey wuxuu sheegayo ama uba tagay wax soo weydiistaa axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa 40 maalmood baan camalkiisa la aqbalin idan salaad uu tukan kana dhici mayso salaadii waa laabudda inuu tukado hadduu salaada tukado waa mujzi ah oo ay asaxdo laakiin qubuulkii dunuubtiisa kala joojisay in xagga rabbi laga aqbalo dunuubtiisa kala joojisay مثلا إلهي وحلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدقة بحصتان قلت شيء شو يا أذية هيسك جبريننا صدقة الله بحضة واتكشى كأنه سأنتاسو إنك يا هبل لو حنسيه ملين ميسين بري بنوي مصاصان وقال لك كم بانو صبين كم بانو صمين وحي وناق عدتك وصمي سطور نبات شيء غنيسا واتكفانيسا آخره saddexda naarta loogu huriyo ee ugu horeeya waa nin quraan akhris badnaa iyo nin jihaad badnaa iyo nin waxbixin badnaa saddexdaba aakhira waxaa la yidhaahdaa waxaad ku doonaysaa camalkaaga in la yidhaahdo hebel waa nin deeqsiya laguna yidhi waxaad ku doonaysaa in la yidhaahdo hebel waa qaari intaad adduunka joogtay laguna yidhi waxaad rabtay in lagu yidhaahdo waa geesi dagaalka geesigiina lagu yidhi aakhira waxba ma lihid baa la leeyahy idan waxaa habboon waxay culimmadu odhan jireen ilaahay qur-aanka badde waa ka inoogu tilmaamay in tukfu waxaa la yidhi camalka haddaad qariso iyo haddaad muujiso labadaba waa la aqbalaa waxay dhahdeen haddaad naftaada uga baqayso ama riyaa ama waxa kan inaad camalkaaga qarsataabaa fiican camal qarsiga saxaabada waxay ka gaadhsiisanaayeen xad qof aanay garanaya wax sii xad sadaqada intuu meel dhigo uu ka dhuunto saxaabi baa sadaqo dhex dhigay masaajidka deetana iskaga tegey ku yaro uu dhalay unbaa soo helo iska soo qaatay dabeetana wuxuu yidhi war xagaad ka keentay odaygu garanaya dee wixii iminka bixiyeenay xagaad ka keento masaajidkan ka soo helay buu yidhi dabeetana nebiga war waa sadaqa aan dhigtay meeshoo dadkaan ugu talagalay buu yidhi nebigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam odaygiina wuxuu ku yidhi wixii aad niyeysataad leedahay inankuna wuxuu heluu leeyahay iska dah يعني وصدقه وأنو ربين حتى قفك قادر يا إنه أجاده إنه يسوي سيء يخفي إنه قريبه دوني حديث النبي واقي شيء جي ضدك تضبط قيامة هرصدا عرش الرحمن كأنه كمدين محي متجعنتي سميدي واحد بيسجعنتي سا بدي حاره يجي ولذلك واحد هذا عبادة مركعة صلاة هي هلا قاعد ضيدو إن دموج الصابة في عن
marka laakiin aad ajarkuun doonaysa ee aanad meesha joogin cidaad leedahay way ku dayanaysaa inaad qarsataaba fiican bay culammadu yidhaahdaan saa daraaddeed baa ilahay wuxuu yidhi sadaqadiinna bilmanni waladaa ha iskaga burinina almanu gallad sheegasho waxbaan ku siiyey idan waxaynu u baahannahay acmaasha aynu samaynayno aynu ilaahay hortii u samaynayno aynu rabno aakhiro inaynu janno ku iibsanno ku helno bimaa aslaftum bimaa camiltum aakhiro inay janno goyso jannadu waa maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar qofka u janno yaray dunida 10 laabkeed buu leeyahy idan waxa intaa leeg ajarka aynu ku doonayno waa inaynu ilaahay oo qura kula tijaaraysanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sida awgeed acmaasheenna waxay u baahantahay inaynu ka dhillo qashinka dhammaantii waxa xaganayoo dhan aynu ka reebno waxaynu isleenahay la aqbali maayadaynu ka reebno walidaalik baa qur-aanku wuxuu inooga warramayaa saalixiinta iyo ambiyada oo acmaal wanaagsan samaynaya haddana ilaahay baryaya inuu ka aqbalo u fiirso camalku samaynaya waa taaco haddana baryada ilaahay buu ku maqan yahay isagoo ilaahay weydiisanaya inuu camalkaasi aqbalo مثلا نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل با إلهي كورميا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك واحد حسطان با يالا ليهي نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل مركي أي ساسكا إلهي بيت كي سدقيين كورن نك عبد صيا وهدنا ربي بريا إن الله كاقبله وكعبته دسيا نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل بيت الله الحرام بي دسيا إيا وكعبته دسيا أي هدنا إلهي ويدي سنيا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهي ونقا أقبل أي ويدي سنيا إلهي قرآن كوحوك قوار رميا مريم هو يديد امرأة عمران مريم هو يديد قفك الدمرة إذا أور لي وحا علوش يدا كجرته إلهي وقول ندرتي إني مساجدك السيسو ومساجدك كشقايو تبتنا وحيلا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني إلهي وحا النذر وحا على شيء إذا كتشرة محررا إنه أديك قار كون نغضه وحروبون إلهي عبادتي سي طاعتي سيك الشقين تيدا فتقبل مني بإلهي والنذر بيسمى يسانيسا ilmaha uurkeeda ku jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala rabtaa inay tidhaahdo adaan kuu nadaray haddana ilaahay waxay weydiisanaysaa maxay fataqabal minii innaka anta asamiicu alcaliim ilaahay oga aqbal bay leedahay ilaahay xagga dambe muxuu ku tilmaamayaa qisada waa taqaaniin inan bay moodayso gabadh bay dhashay waa tii warrantay ilaahay wuxuu leeyahy fataqabalahaa rabbuhaa biqabuulin xasan ilaahay waa ka aqbalay waxaanu ka beeray nabatan xasana baa ilaahay yidhi oo dee ciise ayaa maryan laga beeray iyaduna waxay ka mid ahay dumarkii ilaahay doortay afartuu nebigu yidhi dumarba ma dhammaystirmin afar mooyaane ee culammadu ay isweydiiyaan dhammaystirankaas maxaa looga jeedaa waxaynu arkaynaa nebi ibraahim oo salaad tukanaya laakiin wuxuu baryayaa ilaahay inuu haddana ka dhigo mid salaada ooga sidii la faray ula yimaada rabbi ijcalnii muqiima asalaa salaadda inaad tukatiyo inaad oogtaa waa kala macna bay culammadu yidhaahdaan iqaamatu salaa iyo adaa'u salaa waa kala laba nebi ibraahim ilaahay wuxuu weydiisanayaa waana tukanayay haddana ducadiisii waxa weeyaan rabbi ijcalnii muqiima asalaa ilaahay waxaad iga yeeshaa mid salaada ooga wa min duriyati iyo kuwan dhalayba rabbanaa wataqabal ducaa buu leeyahy ilahu ducadaa iga aqbal ilaahay wuxuu ka baryayaa ducada ah in salaadiisu salaad xagga rabbi laga aqbalo oo uu oogay inay noqoto idan ayuha alaxiba waxaa fiican cibaadaadka markaad usoo diyaargaroobayso horena inaad mashaaqisha kale iska reebto inaad eegto sharciga inuu waafaqsan yahay in ikhlaas uu kuu weheliyo ilaahay inaad wax kaga doonaysa bini aadam aanaad waxba kaga doonaynin ikhlaasi inuu kuu weheliyo haddana intaa inaad ku darto rabbi inuu kaa aqbalo ma ogid waxa kale aad samaysay in rabbi ka aqbalo inaad raaciso ilaahay qur-aanka qaar buu ku tilmaamayaa waxay sameeyaan cid aqbalaynin rabbi wuxuu leeyahay isagoo qolo munaafiqiina laga warramayo qul anfiquu طawcan aw karha
ama idinkoo daayiciina bixiya ama idinkoo laydin qasbay ha laydinka qaado lan yutaqabbala minkum baa ilaahay yidhi lan yutaqabbala minkum inakum kuntum qowman faasiqiin laydinkama aqbalaya baa ilaahay yidhi waayo dul faasiqiina baati wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu biاllahi wabirasuulih kuwa kalena ilaahay wuxuu leeyahy waxaa diiday in laga aqbalo cibaadaadkooda waxaa ka mid a gaalnimadoodaa diiday haddaba ayuha alaxiba makriga ilaahay ma aaminaan dul khasaaray mooyaane saxaabadii isku hallayn may qabin iyagoo camalkaa samaynaya tirada badan labay haddana cabsanayeen innaga laakiin waxaad moodaa qofkii waxoogaa dadka ka yara salaad bata ama ka gadisnaada inuu is idhaahdo adigu ahlu jannaa waaweyn baad ka mid tahay aduu kolley dee dadkan oo dhan waad ka fiicantao ahlu saxwahaa tahay ama qoladii diinta u shaqaynaysay baa tahay inuu iska dhaadhiciyo nacam waa fiicantay diinta loo shaqeeya waa fiicantay in salaada tuka waa fiicantay laakiin qofka muslimka ah afa aaminuu makra allahi falaa yaamanu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun baa ilaha yidhi ma ilaahay makrigiisa ay aamineen ilaahay ma aamino makrigiisa duul khasaaray mooyaane nebi ibraahim oo nebiya oo rasuula oo camal samaynaya ayaa haddana wuxuu leeyahy waladii aطmacu an yakfira lii khati'atii yowma ddiin ilaahay baan hunguraynayaa buu leeyahy inuu dembigayga dhaafo maalinta qiyaama waa amac waa hunguri yacni anigu wixii aan awoodayay waan sameeyey welina ilaahay baan ka rajo qabaa buu leeyahy inuu alle subxaana wa tacaala iga aqbalo isagoo nebi ibraahima ayuu ilaahay baryayay ilaahay inuu shirkiga ka fogeeyo wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam idan ducada qofka mu'minkii marnaba kama maarmo inaad ilaahay ka magan gasho gaalnimo munaafiqnimo riyaa iyo sumca iyo istusin inaad ilaahay weydiisato inuu acmaasha ka aqbalo sadaqa iyo soon iyo salaad iyo waxaad samayso qur-aanku dadka saalixiintaa markuu ka warramayo wuxuu ka warramayaa iyagoo cibaadaad cajab qaba la imanayay haddana ku kabayay ducada والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا marka laga soo bilaabo ilaahay cibaad الرحمن mu ka warrama sifaat ay leeyihiin oo wada wanaagsan ba ayuu ka warrama ilaahay wuxuu ku tilmaamay sifaadkooda inuu ka mid yahay والذين يبيتون لربهم سجدا kuwa habeenkii habeensanaya iyagoo rabbigood u sujuudsan oo qaa'ima habeenkoodu waa salaad ay ku dhamaystaan haddana ilaahay wuxuu raaciyey والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم waa kuwa ku ducaysanaya barya ilaahu cadaabka jahannamana weydaari acmaashiisaas saalixa ah baryaa daba socota aman huwa qaanitun anaaءa alleyli saajida waqaa'ima yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbi miyay simayin baa ilaahay leeyahy ku habeenoo dhan taagan oo sujuudsan oo qunuud ku jira oo alle baryaya haddana baa ilaahay leeyahy yaxdaru alaakhira aakhiru haddana ka cabsi qabaa weli wayarjuu raxmata rabbi ilaahay naxariistiisana hunguri baa ka hayo wuu rajaynaya yacni camalkiisoo qura kuma kaaftoomine waxa uu la socda warwarkan iyo cabsida tan qofka muslimkaa waxa saaran markaas bay culammadu yidhaahdaan hadduu qofku sidaa u fakero oo aanu garanaynin daacaadkiisa inta la aqbalaya inta kale acmaasha uu sameeyo dhammaanteed way la yar tahay qofka aan waxaasi ogeynina wuxuu sameeyey way la tiro badan yihiin dabeetana waxaa ku dhaca alcujb iyo alistigtaa way la badataa wuxuu is leeyahay adigu dee wax badan baad samaysaa shaqo badan baad haysaa wuxuu moodaa inuu dadka kale wax dheer yahay saa daraaddeed baa qofka muslimkaa waxaa laga rabaa inuu fii janbi illaahi uu yidhaahdo acmaashaan ilaahay geystay waa wax yar marka loo eego ilahay wuxuu nimco ku siiyey ilahay wuxuu nimco ku siiyey marka loo eego waa wax yar haddii layna yidhaahdo oxygentaynu neefsanaa laydinka iibinaya ka warran haddii lagu yidhahdo wardi baa lagaaga iibinaya un subxaan allah dee maantii o dhan shaqo kale maad qabateen subxana allah oo intaad huruddo marka ayaa kaa iibinaya marka ila markaad seexatana subxaan allah odhan kari mayse mujarad haddii lagu yidhahdo subxaan allah bes siiso idan qofka muslimka ahi
إلهي وحو النبي محمد تلمامي ولا تمنن تستكثر. الحسن البصري باوحو لي لا تمنن بعملك على ربك تستكثروا. هشيك شيئا عمل كاغا أدقو مودة إنه وحبدا يا إلهي هوشيك شيئا باللي كمان صمينا وحبان قبا إلهي هوشيك شيئا باللي واحد لطمي ووحيرون مر هدي في جنب الله لو أيوه إلهي قفك قرنية وينديس قرنية وحو حقي نقول يا قرنية وحو السمية وين لا يرتي انت يدون طبها الليكات انت يدون طبها الليكات. هذا أيها الأحبة أعماش إن لا أقبلي هي إن لا أقبلين إلهي باؤك. لكن علماء وحيد هذان وحياب الله قد يهدى بشرو استبشارات وحياب هذا دركته رجكوا قلنا يا سيدي عمل كاجوا الله أقبله. وحكم إذا بايد هذان عبادة عبادة سوتشي ده هذا دركته يدو طاعة هذا سي كوريسو رجيسو إن أعماش الله أقبله بايد هذا. هذا دركته هذا قصير نقصامية دباشرته وهي عملك هدي الله أقبله جدك الربا كوف ضداده. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى بإلهي. منك بحية إلهي كعب صده كلمة الحسنى الرمية إيمان لي مادة كاوحن أفضل ديننا بإلهي لطريقة فضوضا خير بخير بودا ليا خير بخير بوسي تشيدي. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى بإلهي. نكا قعنا ضيقة كافتوما إلهي كافتوما توحيد كبورية بينية كان وضد أدق أيان وفضيدين النبالير حمها على فضودانية dadka sharka sameeya maalinba sharkii hore shar ka sii badan buu sameeyaa. dadka taacada la u fudaydiyeyna waxaad arkaysaa maalin walba isagoo sii koraya oo taacadiisu taacadii hore ka badanayso. sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy wayaziidu allahu aladiina ihtadow huda wayaziidu allah aladiina ihtadow. ilaahay kuwa hanuunay wuxuu u kordhiyaa hanuun. kuwii hanuuna rabbi hanuunkan uu kordhiyaa. waxyaabaha cibaadada haddaba lagu kabo waxaa ka mid ah culimmadu waxay yidhaahdaan camal kasta oo wanaagsan markaad samayso istikfaar baa laga dabageeyaa. istikfaar oo istikfaartaas maxay tahay? waxay yidhahdaan istikfaartu laba macnay keensataa. marna dembi aada gashay ayaad ka istakfurlaysanaysaa ilaahay uga toobad keenaysaa. marna bay yidhaahdaan camal aad samaysay yaraantii ama foolxumadii ama dayaca ku jira ayaad cudurdaar uga dhigaysaa rabbi inuu kaa aqbalo. tusaale ahaan qofka kuu gala abaal weyn qof baa abaal weyn kugu leh adna wax badan oo aad ugu abaal gudid ma haysid dabeetana maalin baad qada u samayso qofkan abaal aad weyn buu kugu leeyahay qada wax u cuntama maaha laakiin qadada markaad siiso ee uu cuno bini aadamku cudurdaar bay markaa raaciyaan markaasaa waxaad leedahay wixii aad abaal ii gashay dee beriisaan ku siiyey kuma filla ilaahay unbaa kaa abaal marin marka ama waxbaad siisay hadiyad baad u geysay waxaan aad siisay inuu aqbalo aad u abaalgudaysana waad u sheegaysaa waxaad kaloo u sheegaysaa inay tamartaa tahay inta tani oo aanad abaalku kugu lahaayoo dhan aanad wada gudi karin markaa cudurdaar bay dadku raaciyaan bini aadamku waxay yidhaahdaan walilaahi almathalu alaclaa waxaa la mid ah cibaadaadkaynu samaynayno cibaadadani salaad baynu tukannay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaada tukado asalaamu calaykum markuu yidhaahdo kow wuxuu bilaabi jiray 3 goor inuu yidhaahdo astaqfirullah 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 innagana saasaa layna faray inaynu yeello sunnada ah markaad salaada ka baxdo inaad istaqfirullaysato ma dambaad gashay ila salaad baaba tukanaysa maya rabbaad waxaad leedahay ilaahu salaadaydu tu kuu cuntanta maaha tii la rabay waa ka gaaban tahay wixii nuqsaan ku dhacay salaadayda ayaan ilaahu ka istaqfirlaysanaya wax iga aqbal weeyaa
سأوجد علماء waxay yiraahdaan cibaadaadka waaweyn oo dhan marka aad eegto ama quraanka ku soo aroortay ama sunnada ku soo aroortay waxaad arkaysaa iyadoo istighfaar daba taalo مثلا xajka qofka muuminkii uu xaj taga safarkaas uu galay xoolo iyo daalba uu ku bixiyay wuxuu rabay inuu dambiga iska soo maydho banaan carafa la yiraahdaa ilaahay yiri istaaga banaankii buu istaagay galabtaas oo dhan ilaahay bariya baa la yiri galabtii oo dhan buu ilaahay bariyay soo rogma baa la yidhi soo dareera musdalifo meel la yidhaahda kaalaya ilaahay wuxuu ina leeyahay markaa uma afiiduu min xaysu afaada annaas wastakfiru llaha ina allaha gafuurun raxiim ka soo dareera meesha dadku ka soo dareera quraysh bay odhan jirtay annagu xumus baana la yidhaahdaayo dhaafi mayno xaramka carafi kuma jirto xaramka waa khaarij alxaram marka iyagu halkan sokay musdalifiya munayo meelahan bay sii fadhiisan jireen ilaahay wuxuu yidhi halkan aan fadhinay baxa carafa taga soo dareera wastakfiru llaha ina allaha gafuurun raxiim culimmadu waxay yidhahdaan maantoo dhan baaba cibaado loo taagnaad ilaahay baryaysay waxaana lagu yidhi cibaadada markaad dhammaysaana dareertaan istikfaar ka dabagee macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihin ilaahay oo aad leedahay waxaan samayn karay intaasuu noqdaye ilaahu iga aqbal aad leedahay ilaahay wuxuu ka warramayaa duul jannada gelaya oo badhaadhay kuwa jannada gelaya sifaadkooda ilaahay noo sheegay waxaa la tilmaamay qaliila min alleyli maa yahjacuun habeenkii in yar bay seexdaan baa ilaahay yidhi kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun baa ilaahay yidhi waxaa yar habeenkii intay ka seexdaan waa tukadaan haddana ilaahay wuxuu yidhi wabilasxaari hum yastakfiruun waqti suxuurka marka la gaadhana istikfaar bay bilaabaan waxay yidhahdaan culammadu sunnadu waxa weeyaan habeenkii waxaad tukan karta tuko marka salaada subax horteeda waxa ugu fiican la qabtaa bay yidhahdeen waa istikfaar inaad u baxdo inaad ilaahay dembi dhaaf weydiisato waxay culammadu yidhahdaan salaadii badnayd ee ay sameeyeen waxay ku gebagabeeyeen istikfaar sida awgeed camalka suuban markaad samayso istikfaar baa laga dabageeyaa ilahay wuxuu leeyahy faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbika walilmu'miniina waalmu'minaat ogow baa ilaahay leeyahy rabbi inuu keliyay kii xaq lagu caabudo cibaadada keligii inuu leeyahy haddana ilaahay wuxuu raaciyey wastakfir lidanbik ilaahayna dembi dhaaf weydiiso idan ayuha alaxiba cibaadaadka waxay doonaan ha noqdaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam 23 sannadood buu diintan faafinayay oo meel fog iyo meel dhowba u tegay oo dagaal u galay oo mashaakil oo dhammi u soo qabsaday haddana suuraddii u dambaysay ee u timi markii uu soo guul 23 sano jihaadka dabadii ilaahay wuxuu faray inuu tasbiixda iyo istikfaarta badsado idaa jaa nasru llah waalfatx warayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja haddaad aragta baa la yidhi iyadoo kuu timi ilaahay guushiisa iyo furashadiisa oo aad aragto dadkoo diinta koox kooxu soo gelaya wakhtigaa bini aadamku wuu farxaad oo wuu sheegtaa wakaa waa guulaysanay badhbadhaadhnayduu qaadaa laakiin ilaahay nebi maxamed wuxuu ku leeyahay haddaad aragto ilaahay guushiisiio aada heshay iyo dadkiioo diinta koox koox u gelaya adiga shaqadaadu markaa ha noqota baa la yidhi maxay fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu ilaahay u tasbiixso adigoo ku dheehaya mahadnaqiisa istikfaarna ku gebagabay baa la yidhi wastakfirhu innahu kaana tawaaba idan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyay wixii aada camal soo samaysay استغفار يا تصبيح كوجبجبه ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام وحي سورة كدم بيه وحلا هذا ركوع دي سي سجود دي سي وحورنشري سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بورنشري أيها الأحبة أعماش الله قبنا أيوه مثلا صونكي وإنه إلهي وصوني وحلا يريد الزكاة بحية markuu dhamaado zakadaasi waxa la yiri waa tahura lisaa'ib wixii ka dhacay soonka ka xumeynayay ayay tahiraysaa amaasha midba lagu kabaa haddaba waxa haboon dadka muslimiinta ah inay marka hore cibaadaadka ku dadaalaan
وعبادة إني أصحدو تي ربي أقبلي إني تهيئ إن كلينا مركو هره بيسو وكو عبادة إن دقونو يالط حيكو أصحدا حيكو برتا سيدان بان كسو غاري دادك أما دادكو بسيدا سو يالها سمين هداي الصلاة هداي التوحيد هاي وحان أركي قف دمرة ووقت قان لكل مي أن سلاي ملايين لحدا سنة غاري سوي تكنيسي فاتحة آخر باني اهدنا الصراط المستقيم أبا يخرد يعني قف انت تكنيي وهدنا عبادة ديسي فاتحة آخر سكيدي ولي وحقل دنيي وعجب إذن قفك مسلم كاي ما انتاس بيده وين ملعامد بلاوضي سي فاتحة يده وصحته ودينت يده وصحته قفك مسلم كاي عباداتك وسميسانيو waxa haboon inuu marka hore garto maxay ku asaxdaa wixii sharcigu u dajiyay kow waxay ku asaxdaa ikhlaas in looga danleeyo ilaahay aad ugu dhawaanayso waxay ku asaxdaa wixii burinayay ama nuqsaaminayay ama ajarkeeda yareynayay inaad ka ilaaliso waxaad u baahan tahay markaad la timaado inaanad isla weyni iyo cujbi iyo riyaa iyo waxaas aanu kugu dhicin aad ilaahay bariyadiisa ka dabageyso inuu ka aqbalo rabbana taqabbal minna inaad ka daba tiraahdo waxay u baahan tahay inaad istighfaar ka dabageyso inaad ilaahay u toobad keento oo istighfaar ka dabageyso ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu acmaasha saalixa inaga aqbalo waxaynu dartii u qabanaynaa in rabbi subxaanahu wa tacaala inaga aqbalo rabbi waa kariimun xayiyun ilaahay wuxuu isku tilmaamay mid deeq badan oo xishood badan inuu yahay oo adoon gacmaha u soo taagay aan ku celinin ee ka aqbala daynu ilaahay baryadiisa badino rabbi tariiqa saxaawayna tusaya aan ilaahay barino subxaanahu wa tacaala dadaalkana aan badsanno وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين